بسم الله الرحمن الرحيم وصباحنimo axada 18 bisha May sanadka 2025 oo ku beegan 20 bisha Dulqaad sanadka 1446 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxa kamid ah waa mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee Mareykanka ee F-35 oo xuutiyiintu ay ku sigteen in ay soo ridaan intii lagu jiray weerarada labada dhinac haddaba ma la oran karaa tani waxay qayb ka ahayd sababihii Trump uu qiray geesinimada kooxda reer Yaman isla markaasna xabajoojinta oo la gaaray sheeko cajiib ah oo arrintan ku aadan ayaan barnaamijka idinku haynaa kan waxaan u gudbaynaa sheeko xiiso leh oo ku saabsan diyaaradda dagaalka casriga ee Mareykanku uu leeyahay ee F-35 ee bariga dhexe oo dhan Israa'iil oo kaliya ka haysato ayaa waxa la leeyahay xuutiga ayaa sig inay soo ridaan ayada kaliya ma ahan diyaaradda xitaa F-16 ayaa waxa la leeyahay xuutiga way sigaan waxaana soo baxay warar sheegaya in Mareykanku qirashadii uu qirtay in laba diyaaradood oo F-18 inay badda ku dhaceen suurtagal ah xuutiga inay soo rideen laakiin Mareykanku wuxuu leeyahay si caadi ah ama shil ay diyaaradahan u soo dhaceen haddaba warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa waxay qoraysaa warbixin arrimahan la xiriirta wargeyska National Interest ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa daabacay saacadihii la soo dhaafay xog xasaasi ah oo ku aadan gantaal ay rideen xogaga xuutiyiinta intii uu socday weerarkii iyo weerar celiskii u dhaxeeyay xuutiyiinta iyo Mareykanka waa ka hor xabajoojinta in uu si weyn ugu dhawaaday in uu soo rido mid ka mid ah diyaaradaha casriga ee Mareykanka ee F-35 ahna diyaarad dagaal oo aad u horumarsan ugana qaalisan diyaaradaha kale marka loo eego dhanka Mareykanka wali waxa leeyahay waa mid ka mid ah hubka ugu qaalisan Mareykanka iyadoo la sheegay diyaaradaas inay ku sigatay inay soo dhacdo hadii gantaalkaasi uu beegsan lahaa wargeysku wuxuu isweydiiyay hadii koox aan horumar weyn lahayn kana dagaalamaysa Yaman oo hubkeedu uusan ahayn hub casri ah ay si fudud u carqaladeyn karto hawlgallada cirka ee Mareykanka sidee buu Mareykanka ula tacaali karaa cadow casri ah oo aad u awood badan dhacdadan waxay su'aal ka keentay kartida diyaaradaha casriga ee Mareykanka gaar ahaan F-35 gaar ahaan inay ka badbaadaan weerarada cirka iyo sidoo kale waxa laga walaacsan yahay waxtarka nidaamka difaaca cirka ee xuutiyiinta oo si weyn u carqaladeeyay dhaqdhaqaaqyada Mareykanka intii lagu jiray colaadda labada dhinac u dhaxaysay Gregory Bro oo ah